hoos isku wareysana halka waqafkii go'aada halka maaday si hoos isku wareysana hoosos ma jirtay qarnaysaa buurka culus wala jirtay camera hadda camera jooji ay wareysa camera jooji haddii qof dumar qurxanaan lahaa qurux badan tahay way qof karti badan qurux badan waxaan ku faraxsanay caawa inaan dad isjecel dhexda ugu jiro aniguna aan ahay maasha Allah maasha qof maaha markasta la heli karo available cid kasta ma heli karo laylaga ujeegays meeshaas kulli dad kor waayir way wada indha la oran jiray waxaan rajeynayaa dadku inay aad u fahmaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود أيال هل كان نقد داونيسان ويوتيوب كنا فاطمة رياض يدمام ببراه بالشدة كلا دوان نستعمله سيدا فيسبوك يا تيك توك يا انستغرام كا ميل كستو عن كلنا هاي ابليكيشن كا إسلام مركزنا المقالة يدا كداوتان عاوة هل كان وحيلة شوكا لبوريو آدية فرفرعون وهل كان قوة بحمر دونو هذا الشيء كيسي حساب بدن أميرة يضيح aad baan ugu faraxsanahay inaan kulano waan idin soo dhaweynayaa aad waa dhownahay waa ku faraxsanahay inaan wareysanahay qaadid caawa faadimo aad baan u dhownahay aniga laftirkaygu aad baan ugu faraxsanahay inay wariye sare khabiira aqoon-yahanada qurux badan inay wareysanayso kaatay ma ilaabaye lamaanayaashu idin soo dhaweynaya wargale haddaan ku ceshto wareysi ugu horreeyey oo laga qaado ani shakhsi ahaan alla anigana taariikh bay noqonaysaa waan jecelahay dadkeena sidoo kale waa labadayada wareysigu horreeyana laga qaado soo saas ma ha wareysi macnaha masha Allah ana waxaan ku faraxsanay caawa inaan dad isjecel dhexda ugu jiro aniguna aan ahay miskiinad ba dadku ma gudubtaan ahay baliisa duceeya walaalayaal intaas waa kaftan soo dhawaada caawa sheekadeenu waxay u badnaanaysaa uun sidaas ku barateen iyo shaqadiina iyo arrimaha noocaas bal dayax baan ku horreyn doonaa goormaad amiire isbarateen mise amiiraan ku horreeya amiiradda waaye amiiraddu maadaama kasoo jeedo gobolkii aftahanka ee burco soo dhawow ama sanaag horta waxaa cajiiba inuu saaxiibka iska ka horreysiinayo dee hadal badnaanna waan ku ogaan laakiin waxaad ituug la qabtay taa male marka waxaa leeyahay saaxiibintii intaadana ku odhanaya barashadaydu way dheerayd runtii barnaamijka laguma soo koobi karo aniga hadda 5 sano ku dhowaan magaalada muqdisho jooga 4 habeen marka joogay waan isbaranay runtii wax cajiib ah isku baranay soo dhaweynteydii tiim soo dhaweynaya dhalinyaro ah ayaan isku baranay wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreysay magaalada muqdisho isheedu qabatay marka alxamdulilah ilaah wuxuu iga dhigayba ma garanaysaa qof aan aad isu fahanno garab ii noqda gaashaan ii noqda dad badan oo ehliyad iyo caa'ilad iyo family iyo ma garanaysaa iiga wax qabad badan marka barashadayadii wallaahi waxay barasho walaal cajiiba laakiin dee haddaad dhegeysan karayso waqti dheer bay aad ugu sabir ma haysa annaga waa intaa fadhinay haddii aan aniga inteeda ku daro amira horta si sheegtay waa sax waxaan isku baranay team marka ayada soo dhaweynay iyadoo burco ka timid ayaan ka mid ahaa maalintaas waxaan u qaabilsanaa qaybta sawir qaadista iyo doorista soo dhaweynteeda marka maalintaas is baranay nambaraan kala qoranay kadibna waxaan ku dhahay waxaad magaalada ugu baahato أنا كل قبني وأنا كبر قبينا حاجة دجال كي تميد معنا هل كبرعاي إكسو تميد ركعنا ما دام مقالنا قصبتها يوتيوبر أتاي وحي يجي بهتي وحده بس يوحي كل قرب يجي بهتي لا وضع كل قبني لا تبدأ تنوح يستري الله كمان مركا إسلام مركيبا هري إجمع سوق قبنين هذه سنة عمل مركي مقالة جوكتي وأسألك كتيرني ومر دف ولا قبل جري لكن وحنا 6 أنا وضع ضمنه عن إبلاغ الله وضع كون 26 بشي 6 واي هاي ها مركا أنت وحي كده بين دتك وناركي أنا وضع ضوينا أنا وضع قصلي واي waxaan ku soo dhawaanayaa marka ugu horeysa bal hadhow baynu su'aalaha kale isaga tagi doonaa adiga dayax miira maxay iga dhaxeeyaa
ما استعشين هاي لكن مسقطين سؤال حاجة سلا ورئيسية صدقني بس بلاوي horta jacaylka dadka oo dhan baa aadna weydiiye maxay idinka dhexeeya maraysaa amiiraysu maxay idinka dhexeeya daba dhaxantii waa nolosheedii hore mara aadiya xawgeedii wax isleey bilay sheegtaa meesha la galay wada sheegisan yahay aadiya faadimoy horta dadku badanka waxay yiraahdaan maxay idinka dhexeeya ma isjeceshiin mid israbtaan mid isqabtaan baa xataa qaar nagu yiraahdaa inta wana la weydiiya caawa markii aad barnaamijkan aad qabanaysa waa ogaa su-aasha u horeysa haddaanay noqon ta labaad inay noqonayso waana ku xisaabtamayey waxa lay waran aad og tahay waxba kaama dhibo marka aniga iyo dayax horta dad wax badana ka dhexeeyaan bana hanti baa naga dhexaysa shaqaa naga dhexaysa saaxiibtinima naga dhexaysa micnaha aniga hamiyadayda iyo mustaqbalkayga waxaan ku fikri jiray yaa halkan maanta joogo ilaahay ka sugo qofkii suurageliyey wey magaalada muqdisho anaa cid ka garanay baa soo galay gacantayga qabtay wax ii duubay isoo saaray maanta haddii amiiro shira maqasho aniga ma ihi laakiin magacuun baan leeyahay guulahayga qofka ahay shakhsiyadayda qofkan isfahano qofka wax iga duuba qofka isoo saaro qofka ila shaqeeya maanta haddaan guul gaadho qofkan odhan karo isagaa ka dambeeyey marka saaxiibkay mar walaalkay mar ma garanaysaa wax badan baan isu nahayo intaa waan ka ballaadhanay waxaan soo koobi karana ma aha abaalkiisana janna allah ka dhigo waan ogaya maanta badan buu dhibsanaya maasha allah maasha allah fadhiga ay dhaweeyay soo dhow fadhiga fadhiga ay dhaweeyay u baxda ay aadiya aadiya isla su-aasha haddaan ka jawaabo dib wax badan baa naga dhex wax badan dadkana waxaan u daynaynaa halkaas maxaa idinka dhexeeya marba meel ha u qaataan aad iyo aad waxaan ku weydiinaya dayaxow amiiro yacni ma ka dhex aragtay mustaqbalka gabadha intii lagu xulan lahaa aad maanta ku xulan lahayd oo kale ma odhan lahayd sifadii aad gabadh ku guursan lahayd oo dhan way leedahay hadday noqoto way dhaafta way dhaafta qof haddii qof dumar qurxanaan lahaa qurux badan tahay way qof karti badan qurux badan qof dumar ah intii laga reebay inay dhaafsiisan tahay mooy waxma ka dhin aad iyo aad marka dee waa tintin baad u haysaa waaye amiiro ma jirtaa hal dabeecadood ka jeceshahay dayaxaad tidhaahdo marka yacni aad meelaha goobaha iska fadhideed keligaa taad kale maqantihiin oo kale inaad tirahdid in walaahi dabeecadaasi waa amazing faadimi way jirtaa dayax dabeecadiisa waxaan ka jeclay deganaanta qof aad u degan hadduu caawa inuu ku dilayo iyo inuu ku noolaynayo qof aanan kala garanaynin macnaha aad buu degan marka taasi maxay noqon kartaa macnaha waa qof dabeecadiisu ay u samaysan tahay deganaansho in wax kasta ku qabto markaan goobaha wada fadhino anigu waxaan ahay qof farxad badan iskagoo qosla kaftama niyad furan isagana qofkay dayax isfahmaan waa dhif iyo naadir waxaa laga yaaba qof adigu asxaab aad isku tihiin inaan isfahminba marka anigu dabeecaddan ku haysta ee aan jeclaysan lahaaba waxay tahay deganaanta faraha badan iyo koobnaanta waana qof aad u kooban walow aanan dabeecaddaa u dhalanin kooban waxaa laga wadaa qof aan dadka gelgelin haa qof maaha mar kasta la heli karo available cid kasta ma heli karto ma xulan lahayd bismillah waa dabeecaddan ku haystaba ajiib weeye waay marka hadda dabeecadii oo dhan aad iska hesheen ma laga yaabaa inaad walaaltinimada iyo waxaas iyo jacaylkaas iyo dee saaxiibtinimada inaad hal mar ruqaansataan oo dhinaci kale aad isaga gurtaan wallahi dee labada kun iyo lixaad wax kasta waa dhici karaan wax kasta naga filaa laakiin su-aasheenu saaxiibka ku horreeyaan jeclaaba horta dabeecadda marka la yiraahdo waxba lasoo maqarinayo program dabeecad marka la yiraahdo qoftaan amiira ah saaxiibadaan ahay wada shaqayno horta dabeecadtii ahayd oo fadhida alleeda ka alla waxba ma wadato macnaa dabeecadda ma wadato oo bilaa dabeecad haddaa maqli jirta hebel dabeecad ma laha
ayadoo ay ku dhaxlaado dabeecadda ku dhaxlaado waay marka xagga dabeecadda marka la yiraahdo amiiru waa qof aad dabeecad ma jirto dabeecad ma jirto waay laakiin saas ay tahay haddana dacwo gabi aniga markaa ka shaqaynayo waay ma jirtaa mar aad istiri amiira maanta isugu kin dambaysa oo waad kala gurateen oo haddana aad u dhawaateen laakiin aanay noqon su-aashaas hadday sida tahay uu jawaab amiiru maalin kasta alaabta gurata ay tiraa saaxib ma shaqayn karno ma shaqayn karo isnabadgelin awaan hayadaas baan u dadaa anaa u dejiyo mar kasta anoon isfaananayn macnaha ma jirta hal mar aad xanaaqday oo korof way haystaa waxay rabto shii karta ma jirta mar aad xanaaqday oo istiriniya oo naadeer sidan kuma socon kartid may weli ma xanaaqin taas oo daray maalintu xanaaqay ka waran daya weli ma xanaaqay kusoo dhaweynaya horta waa runtii oo soo sheegayo maalin kasta anigu ma jeclin wax qaldamaan waa dabeecada kamida kibraaninimada mana fiicna naftaydana waa ku canaantaa waxaan dadka gadaal wax ka saxa macnaha marka dambe wax saxa sababta ay tahay ma jecli dabeecada nooca kibraaniga maaragta ilahay baa kibirka ma jecla aniga kibraaninimo igama aha laakiin waxay iga tahay say waxaan ku qaldameen qof qeyral mas-uule baa tahay saan maxaad ku samaysay dayax maanta u dambaysan haynin waxba aniga iga qaldama waxba igama dhintaan waxaan idhaahdaa waxaa haddaana og in la hagaajinayo ayaan haddana waxaan ku daray 20 digniinood oo aanay dib u soo noqonaynin laga yaabaa inay soo noqotana waa shaqo may way soo noqonaysaa marka iyadoo saasi tahay dabeecadahaygu noocaasi u yaro badan yihiin shaqooyinkan weliba aad isugu qabanaa haddana anagoo saacad ishaynaan saacad kadib caadi isu noqonaa wax ma garanaysaa maaha uurka kusii jiro naxliya wax laga gudbi karo marka inta uu sheegay oo dhan way runtiisa marka dabeecadda waxaa leenahay tiimka u soo duceeyaan xagga dabeecadda waayahay saaxiibayaal ma jirta hal dabeecadood iskaga mid tihiin oo yacni aad maanta dayaxya amiire dabeecaddaas iskaga mid weeyaan wallaahi horta amiira ananteedaan aqaanaa mogta tayda calaashaan waxaa laga yaabaa ani horta mihii calaashaan sidai ayad hadday sheegtay dadka qof kasta isbartaano qof kasta iskala saaxiibo mihi waa qof kasta iskugu baxaan dad yaroo koobaba isku kayn baxdaa oo aan calaashaan shaqa hadday noqoto haddii asxaabtanama ay noqoto marka amiira dabeecad meel aan leeyahay ani amiira meesha kaaga dabeecad eg tahay ma jirto aad iyo aad isfahanka oo kale ka waran taasba waa dabeecad isfahanka oo dee waa dabeecadda laakiin adigu waa isfahanaa كله taasna waa dabeecad هذه فاهم مش افرض لي ويسفهم بالي waxay rabaan baruun bas laakiin hal mid ku wanaagsan tahay aad hal mid ku wanaagsan tahay waxay tahay dabeecadaada aad buu ku celceliyay axmud hal mid ku wanaagsan tahay waxay tahay waa qof calaashan mar qaar waa qabsoom ogtahay hadaad wax u sheegtid way ka qaadanaysaa dabeecadda weli ma aragan ugu intaan la socday amiiri maxaa ka dambe ka soo bixi doonta dabeecadda ka yaab dabeecad kale dumarka gooni isku dabeecadda aad ka yaabtay weli ma arag dhagaxaan ku gornaysgara ilaa hadda wanaageedaan arkaa amiira maasha allah horta wallaahi horta waa mahad celinaya waxay ka mid tahay dadka sida gaarka ay kusoo dhaweeyay magaalada muqdisho iishaday welibana waa dadka ugu badan ee jecelna wax qabsado marka aad iyo aad baan kugu mahad celinaya wax kuleeyahay waad mahadsan tahay waa gabadh dadaal badan laftarkeeda way dadaal badan tahay amiira waa dadka waxay jecesha waa dadka jecel in qof kastaa wax noqdo anaga qofka aad baan isu fahanaa moogta aniga laftarkayga waa iska jecela dadku inay wax yeeshaan marka amiira weli dabeecadda kuma arag laakiin balowan eegi malaa jacaylkaa wata laga yaabaa waxaa jirta dadku iyagoo jacayl isugu jiro caadiya inay saaxiibtinimo moodaan moogta kadibna dagaal inta badan dhexdooda ka yimaado taasaa dhici karta horta wax badan waa isku fahanaa laakiin dabeecadda calaashan qof dee dabeecad maran maaha qof dee oo qof bini'aadan oo noolo fahmi karo aad iyo aad laakiin waa kuleyl xagga dabeecadda aniga markaan macnaha xoogoo dabeecaddeeda faadimo bal marka waxaan codsanaya bal dabeecadaan ku fiicanay si aan ugu ogaado marka maxay ku fiican tahay waa qof oo fikir fiican waxay ku wanaagsan tahay waa qof qabsoomi og wax u sheegi kartid wax ka dhaadhici kartid inkastoo ayna wax ka dhaadhiciso mar qaar adag
أدي هذاك تعبير أنا وأنا سلاليو لكن هالك مدوي يكون أكستي وحيته وقف قلب ونكس أدي وقف قلب ونكسن وعاد مرمرك قار أنتي أركتو استرادوني وهدو أنتي سليابتي إذا كلا استراد بلني وهداي واحد سمي معنا قلب يعين ولا رعل أدي مرك وقف علشان وان حريص بدنته فهذا يعني متك كدره أنا dabeecadda caadiga aan dadku dhaqno isma diidnaba marka saaxiibka waxa laga yaabaa maadaama aan isku badannahay inuu dabeecado gooni oo aanay dadku iga arag badan ka iga arko marka igastuu saaxiibkayga ugu de macnaha ma oran kara saaxiib qofku iigu dhow u yahay inta magaalada muqdisho joogtay wadoodo qofka kaliya raaco ka warayo waxa jirta xataa intaan meel iska fadhiisto haddana xataa intaan meel ka soo baxaan meel iska fadhiistaan shaqo u baxo haddaan maalinka shan jeer garaacini maaha dabeecadaan isku arkay waxaan qabanaya kala tashto wuxuu sheegay ana isla yaabo aadi waan ogahay wax badan ma ka warhaya ma raba inaan sheegay ila dadku waxay odhanayaan faadmiriyada aamini meynay sirtaa sheeka noqonaysa waxaan doonayaa mid walba su-aashan soo socotay inaan gooni weydiiyo mid kasta waxaan rajaynayaa inay sideeda igaga jawaabo insha allah dayaxaan ku horeynaya dayaxow waxaan ku weydiinayaa idinku saaxiibtinimo xoog oo qoto dheer baad iga dhexaysaa walaaltinimo way dhaaftay macaalo saaxiibtinimo marbay halkaa markay mariso waxba lama kala qarsado xataa hantidii waa idinkeedhi waan ma garanaysaa shukaasi ma ku jirta dayaxo shukaasi ha yani xidhiidh ma leeda yes waay qofka aad xidhiidh kala leedahay dumarku weliba aad iyo aad bay u jaan badan yihiin u riski badan yihiin aniguba ma jeclin ninkaan shukaansada inaan dhokdhok iyo naaga iyo meelaha wax ku arko amiirana markasta waa isla joogtaan telefoonka qofka aad xiriirka kula jirtaa sidee baad u xalisaa bal nooga waran soo dhawow su-aashaas ayada horta waa su-aal cariiriga war maxaa isle horta maxaa ka yirsi marka dadkan waxay dhahaa soomaalida waxay dhahaa ilaaha imay mar laga yirsi may waan kusoo daraynaa una hadda tiraadigo iga jaraya marka su-aashaas ayada waxaan jeclaan lahaa inaa maysaad ku xalisaa su-aasha bartankaa kaga jirtaay yacni sida xiriirkaaga iyo saaxiibtinimada amiiradii ka dhexaysa aad isugu wadaa soo dhawow dayax kamana bixi kartid su-aashaas ayad ah waa ka gaabsaday macnaa dee noo fasir waxaad uga gaabsatay qofkii maa qofkii la kolley babka weydi daawanaya adinku isag fadhiye bal naga war naga sii su-aashaas maaragtay alleydaga jeegaya su-aashaas kolley dad dee kor waayeel waay wada indhaa la odhan jiray waxaan rajeynaya dadku inay aad wax u fahmaan saasoo dhan mad u cabsanaysaa ha laakiin de bal wuxuu nagu qancin haba yaraatee halka waa qofkii koowaada xalka ku xumaaday hoosoos ma jirte garanaysaa buurka culus waxba isku dayi garmay su-aasha isku celfaado bis waayahay amiir aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa su-aasha kale su-aashan unbay la micno tahay kolley gabadh baa tahay ma odhanayna xidhiidh ku jirtaa inantu dee kuna walasha kasta kuna way ka raacdaa adiga waxaan ku weydiinayaa marna ma kaaga masayra qofka aad shukaansiga kula jirtaa horta xidhiidh ma haystaa anigu waayahay ka waran mar ma kaaga masayro makuuli weynaad ama inankaa yar kasoo hadhid saasay rag u hadlaan moogtay ama ninkaa dayax weynaad kasoo hadhid ama weynaad xiriirkeena baabisid macnaha ninka shukaansataa saas ma ku dhaadka wada sometimes way ka dhexdhacdaa dadka xidhiidhada leh horta faadime waa mahadsan tahay anigu xiriirka leeyahay xiriir dheerkaa gaadhsiisan qof ka soo hadh
maamiya maaha way waana xuriid iska beesaaniyo ilaahay barakeey aad iyo aad marka oo qof normal ah ha qofku markaa qofku haddii aad isfahmaysaan iskuna wacantihiin kalsooni badanna meesha jirto caqabado badanna ma jirayaan aad iyo aad marka ilaahay ma tusin arrimaha aad iyo aad waana ka ducaysanaya waayo gabar laakiin oo marna isku meydin qabsanin xaaladaha saaxiibtinimada sometimes way ka dhexdhacaan saaxiibtinimada sometimes caqabado way yimaadaan laakiin caqabada iminka taagan anag iyo dayax dhexdayada cid ka hadli karta noloshanka iyagaa ka hadli kartaa ma jirto naagto adagaa bal waayahay wuu soo dhowo mar kale aad iyo aad dayax assalaamu calaykum وعليكم السلام dayax horta reer gobol maata يس way xageed kasoo jeedaa kasoo jeedaa meel la yiraahdo hiiraan hiiraan gobolka aad oo hiiraan shabeellada hiiraan gobolka hiiraan Yes. aad iyo aad bal shaqada intii intee in leeg baad isleedahay adigii amiiru saaxiibtinimada saa u qoto dheer iyo wada shaqayntan fiican iyo ilaa halkee baad doonaysaa inaad ka gaadhaan wallaahi horta markay shaqada wada bilaabeynay meeshii uu fogeedo rabnay inaan ka gaarno already waxay leegtahay inaan joogno alaashaan hadda hamiye kasii fogfog iyo nololo kale oo kasii fogfog manaha meelo kaloo mustaqbalka la gaari karo inaan gaarno waa rabnaa laakiin adiga already meeshii waa joognaa waad joogtaan hadda waa gaadheen aad iyo aad markii ugu horreysay ee aad shaqada wada bilaabisayn maadaama amiiro aad tiri xagga waa gabadh aad iyo aad kulkululoo xagga magaranaysa shaqada iyo isfahanka mis intee halkan maad isla soo gaadhaysaan maad islahayd mise waxaad islahayd walaahi amiira maaha uma muuqato qof aad isla jaan qaadi kartiin horta shaqada markaan wada bilaabeynay kulley ayadana markeeda ka jaabi doontaa laakiin inooma qorshaysnay ilaa intaan inaan isla soo gaarno oo macnaha markii hore waxay ahayd un dad iskugu yimaada inay iscaawiyaan laakiin dad inay wada shaqeeyaan isfahmaan meelo fog isla gaaraan macnaha dee nooguma jirin xisaabta xitaa heshiis la-aan baan ku wada shaqeynay aniga ayada oo markii hore marka waa ka ma jiraan amiira borogaraamo dee aad isla samayseen dayaxoo aad tidhaahdid borogaraamadaasoo kale ee guuleystay dayax baa ka dambeeyey inay halkaa gaadhaan barnaamijka qaybihiisa ugu dambeeyana waa maranaa aad baa umahadsantii soo dhawaada faadimoy horta barnaamijkii laygu bartay su-aalaha magaalada muqdisho aroomo dalka u ahaa dhalinyarada badanna kusoo caanbaxeen ilaahay ka sokow anigu wax soo saaraan ahaa laakiin qofka dee dadka usoo bandhigay qayb lixaadla ka qaatay hirgeliyey dayax buu ahaa marka barnaamijkii ugu weynaa ee laygu bartay maanta bulshada way igu taqaano dee ninkii bulshada usoo bandhigay bulshaday baray buu ahaa guul fiicanna waan ka gaadhayo dee maanta flowriskana haysto iyo dadka yaqaana dee iyo shacabkana hantay baa ka badan marka uma malaynayo guulo ka waaweyn guulahaas oo aanu gaari doono way dhici kartaa laakiin hadda ma jirto guul weyn baa ka soo weynaa la odhan karaa halkaasna aan ku daro oo inaan programkaas aadka u coslaa oo magaalada muqdisho waqti badan ka hor ugu dambeysay dee waxaa sidoo kale nala hirgeliyey nin macnaha waxaa laga yaabaa inay yara hilmaamsan tahay laakiin oo nala qabtay oo programkaas heer sare nala gaarsiiyey nin la yirahdo halkan ka xusay abraas waa aniga walaalka aad baa gacan weyn yana walaashayadana aad u jecla muna la nin gacan weyn aad naga siiyey programkaas inaan weliba social mediahan inaan sii wada joogno oo aan wax kasii samayno oo aad noogu dhiirigeliyey waa nin dalka ka maqan waa macnaha aad iyo aad qurba joog ba waay aad iyo aad baan idigu mahadcelinaya saaxiibayaal waxaad tihiin saaxiibo qaaliya oo waqtigu iskaaga baray oon isku xirfadnahay kaftan fiican iyo wada sheekaysa fiican baana dhex maray taasna waxay ku sahlaysaa muddadii aan wada joognay aan xamar joogayna waqti fiican wada qaadanay marka labadiinaba horta waan idiin mahadcelinayaa
si fiican baa igu soo dhaweysan magaalada waa ii shideen waan idinka qabaa bay dhahdeen reer xamarku marka aad iyo aad baa umahadsantihiin dayaxo waan ku salaamayaa amiira adna sidoo kale waan ku salaamayaa yaad macasalaamaynaysaan haddaad idinku ismacasalaamaynaysaan oo arrin fiican adaa safar naga sii adaa kusii macasalaamaynaynaa bay sidoo kale halkaa ka salaamaynaa ninka odaga ah halkaa ka xusnay abras isagana waxaa leenahay guuleyso waayahay ma dhamaata aniga taydii ma waad siina haye saaxiibe soo dhawow saaxiib faadimo aad baa umaadsantay walaalo waxaan ku faraxsanahay inaad magaala madaxda ummadda soomaaliyeed noogu timi kugu soo dhaweynay weliba inkastoo dee qof inaan kuu qallay ahayde laakiin may dhicinin markaa soo dhow baan kuleeyahay adaan halka kaasii suguutinaynaa qof ma garanaysaa ee furfuran dhalinyaro ah khibrad leh aqoon le meel kastay tagtana ku shaqaysan karaysa waxaan kuleeyahay intaa dadaalkaa kasii labalaab waxaan halka ka salaamayaa oo kale walaalkay oo guusheeda boqolkiiba boqol isaguna ka dambeeyey oo miidhiyahaygaba dee anigaan igu jirin xataa ila dhisay abraas aad baan u salaamayaa walaashay muna oo iyaduna iminka iga maqano xaalado kala duwan nolosheeda la soo martay magaalada muqdisho baday ila joogto waan salaamayaa faamligayga dhammaan waan salaamayaa adigna waxaan ku leeyahay walaal wax ku dhibay ilaahay kuma tuso aad baan kusii salaamay aad iyo aad barnaamijyada iyo muuqaalada kala duwan ee quruxda badanna waxaa gacan weyn iga siiyey cadda bootreed iyo tiimkiisa dhammaanban waan u mahad celinaya barnaamijyada quruxda badan halkanina waa boodkaaska muqdisho ugu shidan saaxiibayaal intaynu isugu iman doono barogaraamada kale ee la socda youtube-keena subscribe ka saara